markii aad ogaatay qalbigayga wixii ku jiray oo aad qalbigayga faagfaagtay oo wax walba qalbiga aan kuuga hay aad ogaatay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذلكين بمبال بودنيدا أدك جوجتان اسكو سو نقد وناكسن أو ولي بحيسة له وأنيقو عبد الرحمن محمد إسماعيل channel كان داونيشن وجابر جميل أوفيشال هدي أد نقول شبتها سو دو هدي أد هورن ولا جوجتينا وأدكم مع سنتها لجركاga عادي أد مكاga محد علينا runtii muuqaalkan aan soo gudbinayo caawa ama maanta saacad goor sheegtada xilliga ay ku tahay adigu uu ka duwan yahay muuqaaladii hore aad iga barateen aan idin soo gudbin jiray waan idin ka raali gelinayaa inaan kaamirada hor imaado anigoo aanan dhool cadeynayn ama aanan qoslayn sababta igu kaliftayna anigoo dhool cadeynayn ama aanan qoslayn inaan kaamirada hor imaado oo welibana muuqaal idin soo duubo runtii waa sabab ama xaalad adag oo soo wajahday marka idin leeyahay xaalad adag mararka qaar waxa aad iyo aad u wanaagsan qalbigaaga wax ku jira inaadan cidla la wadaagin inta doonto waxa ahaatay runtii qalbigayga go'aasho fara badan ayuu dareemayaa waa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan su'aalo fara badan iyo hadalka meesha idinkaga bilaabay laakiin waxaan rabaa muuqaalka inaad igala soo yaro daawato kadibna sheekada aan kuu wado si aad ula ambaqaado inaan kuu sheego aqbalaada ay aqbashana oo ku mahadsan tahay adiga soo gudbinta soo gudbiso oo ku mahadsan tahay yaan kugu waalanahay ma adadahay waan ku jeclahay mise maqalkayga oo qaatay ma dhacayse waa maxay aadun baa iga hormare sidoo kale waan ka helay aadun baa iga hormare sidoo kale waa tahay waa rajaynaya inaad muuqaalka ka soo dharagtay fideoga aad ayuu fogaa saa soo daawatay shalayto galab ayuu ahaa fideogaas runtii aniga ma filaynin wax baraanki ah laakiin qalbigayga waxaa ku jiray waxay ahayd dareen jacayl rabitaan oo aan la baqaayay oo aan islahaa haddii mar un aad oraahdan tidhaahdo ama aad hadalkan afkaaga uu ka baxo waxyaabo fara badan oo dhaawac ayaad la kulmi kartaa oo aadan filayn laakiin markii aniga adiga igu tiri ereyadaas runtii waxaa i soo gashay rajo aad u weyn farxad laakiin ugu dambeyntii waxaan ka dhaxlay in kala soo tagay niyad jab kolayto xaaladda aniga hadda aan ku jiro waxa kaliya qiyaasan kara dareemi kara marka ugu horeyso waa aniga oo qofka xaaladdaasi ku jira ama ay ku dhacday ah marka xigtana qof kasta oo bini aadamnimo leh ama qalbi leh wuu dareemi karaa waxaan dareemayaa maanta fariin ayaan rabaa halkan inaan ugu diro faraax runtii fideogaas xalay inaad soo geliso 100% aad baa ugu xumaa mana jeclaysan laakiin qalbigayga wixii ku jiray kolayto xalayt waa ogaatay
ama haddii baranki ka ahaan lahayd iyo haddii ay ka ahaan lahayd wax sax ah. Aniga shalayna waxaan ahaa qofkii ku rabay ee ku jeclaa, maantana waxaan ahay qofkii ku rabay ee ku jeclaa. asxaabta ma jecleen muuqaalkan inaan hortiina yacni saanan ugu murugoodo ama aan murugo idinka soo hor muuqdo. koleyto ma ahan waxa ilintaan ilin aniga xakameyn karo ama aan aniga ilin karo, laakiin waa wax arrin qalbigay ka imaanayo. dhaawaca qalbigay ku yaalana ma ahan mid yar. koleyto waxaan ku leeyahay Ifraax, shalayto waan ku jeclaa, waa ka xumahay. anigu xaaladan ku jirnaa in hor imaado boqolkiiba boqol aad baan uga xumahay. ma jecleen mana filayn, laakiin wax walba dunidan way ay dhacaan. ma dareemi kartaa adiga maanta daqiiqad gudaheed ayaad iga farxisay, daqiiqad gudaheedna waad igu qalbi jebisay. soo daqiiqadii aad igu farxisay aad igu toogatay haddana xaqiiqatan markaa igu tiri aad ii soo gudbisatay arjiga, qalbigayga runtii aad aan u farxay. waxaana dareemay si aad iyo aad runtii naxariis igu jirto inaan soo dhex galay badweynta caashaqa. waxaan albaabada qalbigaaga oo dhan inaad ii furtay, aysan jirin albaab iga xiran. sidoo kale anigana albaabada qalbigayga oo dhan inaan kuu furay, laakiin mugdi iyo madow fara badan ayaa hadda i galay. runtii ma aqaano muuqaalkan sidaan kusii wadi karo. xaaladda aan hadda ku suganahayna xaalad aan qiyaasi kara maaha. sababta aan muuqaalkan usoo duubayna waa inaan fariin ahaan ugu diraa qofka aan xaaladdan dartiis ugu jiro inay ogaato dhaaxan kalgacal dheeldheeliyoon dheeliga ka jiray, dhaaxuu wanaag dhul xareediyo qays la dhex maray. dhaaxan kalgacal jacayliga dhinto waa jashii dhammaan. asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha mudan, muuqaalkan ma sii wadi karo. waxaan idinkaga tegayaa tani muuqaalkan muuqaal aynkaa lamida intaan ku kulmi doono.
sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.